السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا عشرة aqoonkaal.com casharkan maanta waxaan ku baran doonaa barnaamijka loo yaqaano Google Analytics waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada lagu ogaado inta qof ee soo booqata website-ka waxa badanaa dadka website-yada leh ama qofka maamula website-ka uu u baahdaa in uu ogaado tirada dadka soo booqatay qaybaha ay akhriyaan nooca kombiyuutarka ka soo galeen screenka maana cabirkiisa iyo macluumaad fara badan oo kale oo muhiimad u ah si loo sii horumariyo website-ka marka barnaamijkan Google Analytics wuxuu ka mid yahay barnaamijyada loo adeegsado in tirada lagu ogaado inta qof ee soo gashay website-ka haddaba si aan barnaamijka u adeegsano waxa la qaadaa sida caadiga ah oo waa barnaamij aad u sahlan runtii waxaan la maraa 5 talaabo talaabada koowaad waa inaad leedahay email aad ku leedahay gmail-ka marka waa inaad gmail leedahay email gmail ah gmail.com baad gelaysaa haddii aadan email lahayn email baad ka samaysanaysaa marka haddaad email leedahayna tii hore aad lahayd ayaad adeegsanaysaa talaabada xigta waxa weeyaan inaad account ka samaysatid Google Analytics website-ka google.com/analytics baad waxa ka samaysanaysaa account ama qaybtana ka furanaysaa account oo arkanaysa loo sameeyo tan xigta waxa weeyaan waxaan ka soo qaadanaynaa meeshaas markaan samaysano account-ka xeerkaas ayaa waxaan ku xiriirin doonaa website-ka kadibna talaabada ugu dambaysa waxa weeyaan waxaan Google ka hubinaynaa inuu xeerkan uu la shaqeynayo website-ka haddaba aan bilowno marka ugu horeysa waxaad riixdaa batoonka Access Analytics si aan akoonka u furano emailkaagii haddaan email lahayn hore aan sheegnay waad hadda samaysanaysaa laakiin emailkii aan lahayn baan ku furaynaa akoonka emailkii aan ku furaynaa waxay ahayd bifuraha kadibna enter ama sign in waxaa markaa diyaar ah barnaamijkii Google Analytics oo inaad markaas garaysid ama rakibtid diyaar ah talaabada ugu horeysa waxa weeyaan eeg dhanka hoose meesha ku qoran tahay sign up batoonkaas riix shaashada xigta waxaa ku qortaa website-kaaga magaciisa geljira.com ama website-ku wuxuu yahay .com ama .net wuxuu doonaa ha ahaadee www.com waxaan markaan halka ku qoraya website-an gaar u sameeyey oo ah html kadibna akoonka magaciisa isla webka u deyn kartaa magaciisa saacadda meesha joogtid bani hadda waxaa joogaa central intaa markaa samaysid waxaad riixaysaa batoonka continue kadibna magacaaga last name-ka first name-ka iyo waddankaa joogtid katuna markaa continue riix markaas waxaa akhridaa Google Analytics xeerka macnaha loo adeegsan karo waxyaabaha loo adeegsan karo akhri haddii markaa ku qanacdid waxaad riixaysaa batoonka dhanka hoose ee ay ku qoran tahay yes waa aqbalay ama yes agree kadibna waxaad riixdaa batoonka ugu dambeeya oo ah create new account markaasi wuxuu ku weydiinayaa ma u baahan tahay tracking code-kii waayo waxaan u baahannahay waxa weeyaan inaan soo qaadano xeer inoo tirinaya inta qof ee soo gala website-ka marka inta haddaa dhowr website isticmaalaysa halkaa calaamadinaysaa laakiin hadda waxaan isticmaalnaa hal website baad doonaysaa soo maa markaas dhinaca midigta xeerkii wuxuu kugu yaalla dhinaca midigta xeerka waa kana xeerkaasaa koobi ka qaadanaysaa sida uu yahay baad koobi uga samaysanaysaa right click baad ku samaynaysaa kadibna waxaa leedahay koobi marka waxaa leedahay save and finish marka intaad samaysid xeerkii waxa weeyaan waad soo koobiyaaraysatay waxaad la tegaysaa website-kaagii marka waxaan ku sameynaynaa ama xeer ku qoraynaa WordPress website ku qoran marka soo gal website-kaagii dashboard-ka kadibna dhinaca bidixda ah bartay ku qoran tahay appearance
riix markaa riixid waxay eegtaa magaca website-kaaga macnaha barnaamijka ku samaysay aniga waxay ugu samaysan hadda ama theme-ka uu kugu samaysay website-ka theme-ka aniga ugu samaysay waxa weeyaan waa geeljire bartaas riixaysaa dhinaca hoose waxa ku qoran tahay meel ay ku qoran tahay Google Analytics ama Analytics ku qoran tahay fiirinaysa meesha hoose waxa ku qoran Analytics ama tracking code bartaas marka xeerkii ku base garay right click and paste xeerka soo qaadanay halkaasna marka waa in hadda yes iyo no leedahay marka waa in ku tahay yes safely markaas marka ku laabo Google Analytics waxaad eegaysaa marka qaybta ku qoran tahay report ama view report bartaas marka riixaysaa halkaas marka waxa ka soo bixi doona marka maalin la joogo oo dad soo booqdo ayaa waxa ka soo bixi doona tirada dadka soo booqday hadda waxa weeyaan haddaan sameynay cidna ma soo gelin marka tiradii dadka la soo baxaysa waxa arki doontaa marka inta qof soo booqatay marka la eego visitors halka riixi doontaa barta dhinaca bidixda ah waxa arki doontaa marka wadamada laga soo galay dadka visitorska browserka nooca ay isticmaalaan waxa arki doontaa visitorka inta qof hal mar soo booqday waxa arki kartaa in lagu soo booqday cell phone iyo in kale akhbaartaas oo dhan halkaas ka muuqanaysa marka waxay muuqanaysaa laakiin marka la joogo dhowr maalmood marka la soo booqdo website-ka tiradii baa halkaas soo baxaysa marka waxa ku soo baxaya halkaas graph nooca graph ka mid ah oo tiradii muujinaya waxa laga yaabaa inaad isweydiisid ka soo qaad marka theme-ka adeegsata haddii uusan lahayn meeshii koodhka ama xeerka lagu base garinayo ama lagu daabacayo uusan lahayn waxaa markaa samayn kartaa dhowr siyaabood baad samayn kartaa inaad FTP ugu dirtid xeerka adigoo adeegsanaya notepad oo notepad ku qoraya notepad-ka waxa weeyaan xeerka waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan theme-ka magacii theme-ka waa kana all files ka dhig kadibna waxaa eegtaa meesha u hooseysa ee footeriska wordpress hadda waxaan ka hadlayaa kadibna waxaa ku daabacaysaa xeerkii meesha ka sarreysa boodiga oo meesha u dameysaa halka ku base garay right click xeerkii paste dheh waa kana marka xeerkan soo koobi yaarisan halkaasaa ku save garanaysaa waa meesha ka sarreysa boodiga markaasaa leedahay safe ama toos waxaad ugu daabici kartaa laakiin tan waxa weeye waa hab yaraha halisa waa inaad website-ku copy kaaga samaysan yahay haddii kale waxa laga yaabaa inuu kaa crash garoobo waxaad toos ugu daabici kartaa qaybta edit-ka tegaysa macnaha website-kaaga qaybta dhinaca bidixda edit ku talmaayo insaan la sameeyo laakiin haddii laga fursan waayo baan ka hadlayaa marka kadib waxaa eegtaa footer eeg dhinaca hoose hadda xeerkan waan ku daabacay laakiin halkaas ku daabici lahaa hadda waxa weeyaan kan uu ugu daabacan yahay meesha ka hooseysa w footer kana sarreysa boodiga baa ku daabacaysa xeerka wati halkaas waxaan ku soo baranay sida loo sameeyo barnaamijka Google Analytics isla markaana lagu xiriiriyo website-ka kadibna loo ogaado tirada dadka ah ee soo gelaysa website-kaaga halkaas aan ka gudbaynaa casharkii maantay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan idin soo gudbinayay maxamed cali aqoonkaal.com